runtii ra'iisul wasaaraha wuxuu qaabilay wafdigii u yimid shirkii tacliinta sare ee soo qaban qaabsay jaamacadda ummadda ee wasaaradda waxbarashada. Wafdigan waxay ka kala yimaadeen 5 dal: Thailand, Koonfur Afrika, waxay kaloo ka yimaadeen Suudaan, Turki iyo Talyaaniga. runtii wuxuu u sameeyay soo dhaweyn una uga mahadcelinay ra'iisul wasaaraha inay ka soo qayb galeen shirkan oo looga hadlayay wadamada dagaalada ka soo baxay tacliinta sare, gaar ahaan waxa xooga lagu saaray baxdiga iyo wax curinta. ra'iisul wasaaraha wuxuu kala hadlay dalka xaaladda uu marayo iyo sida runtii tacliinta sare ee dalkan ay u soo kacday iyo doorka jaamacadaha, gaar ahaan jaamacadda ummadda Soomaaliyeed ay ku leedahay tacliinta wadanka. waxyaalaha ay ka hadleen waxa kamid ahayd runtii inay uga mahadceliyeen martiqaadka lagu martiqaaday shirkan, sida ay si la mid ah wufuudda qaarkood oo ahaa wafdiga ka soo qayb galay 2016 ayaa waxay meesha ka sheegeen in runtii isbedel weyn uu ka muuqdo kulankii hore ee kulankan. ugu dambeyn ra'iisul wasaaraha wuxuu u ballan qaaday inuu la shaqeyn doono, sida ay si la midana waxay ballan qaadeen ayagana runtii inay soo noqon doonaan, fariin ay qaadi doonaan dalalka ay ka yimaadeen ay gaarsiin doonaan. fariintaas oo ah Soomaaliyada aan maqasheen, Muqdishada aan maqasheen ma aha tii aan soo aragnay. runtii aad ay ugu faraxsanaayeen. ra'iisul wasaaraha qarankana wuxuu uga mahadceliyay mar labaad in ay ka soo qayb galeen. ka wasaarad ahaan iyo jaamacadda runtii sharaf ay noo ahayd. waxaan rajaynaynaa hadduu Ilaahay raaco shirarkan ay shir la mid ah inaan badino, kuwaasoo ka qayb qaadan doono kobaca waxbarashada sare ee dalka. isla fursadaas waxaa ka hadlay wasiirka, sidoo kale gudoomiyaha jaamacadda ummadda oo ahaa runtii shakhsigii sida aadka uga soo shaqeeyay, iyo jaamacadda ummadda Soomaaliyeed doorarka ay ku lahayd soo celinta dalka. ugu dambeyntiina waxa uu shirki ku soo gabagaboobay in loo ballamay ama ra'iisul wasaaraha uu kula ballamay wada shaqeyn dhab ah wasaaradda waxbarashada iyo jaamacadda inay u muujiyaan ummadda jecel in ay la shaqeeyaan horumarinta qaranka iyo ummadda Soomaaliyeed.